الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللحاد هي كتاب كأني تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. درسي كان لحاد وبابك صدحات بابهان وحنا كما قاب الشيخ استحباب بشارة من ولد له ولد. قفكي الملو دالوه إن أي سنتها إن لو بشاريو looguna tahniyeeyo taasina way la socotaa qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo qur-aanka meelo badan uga soo aroortay waxaa ka mid ahayd meelahaas sida suuratu huud oo kale rabbi subxaanahu wa tacaala walaqad jaa-at rusulunaa ibraahiima bilbushraa walu fiirso rusul baa u timid nabiyullaahi ibraahim bishaarayna u wadeen bishaaradaas waxay ahayd midda gadaal aayaadka dambe wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi waxaan ugu bishaaraynay isxaaq wiil la yidhaahdo ayaan ugu bishaaraynay. way qososhay haweenaydiisii ama xaaskiisii. culimada qaar waxay yidhahdeen cajaban wastibshaaran bihalaaki qowmi luut. waxay la qososhay in la halaagay qowmkii luut ee ficilka xun samayn jiray, ragga wax ka dayi jiray. qolyo kalena waxaa la yidhi waxay la qososhay iyadoo da-weyn inay dhiigga heshay oo dhiiggii uu ka yimid bay la yaabtay, marka way qososhay. say doontaba ha noqotee bishaara reerka loo waday oo ilaah ugu bishaareeyey in ilmo ilaahay siinayo. aayaad kale wuxuu rabbi ku sheegay fabasharnaahu bigulaamin xaliim, yacni wiilka xaliimka ah ayaanu ugu bishaaraynay. aayad kale wabasharuuhu bigulaamin caliim, wiil cilmi badan ayaanu ugu bishaaraynay. marka inaa nubashiruka bigulaamin caliim, aayad kale wiilkaasaa ilaahi subxaana wa tacaala ugu bishaareeyey. sidaasoo kale zakariya rabbi wuxuu leeyahay inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxyaa, oo magaciisii xitaa loo sheegay ayaan kuugu bishaaraynaynaa. ayib, marka bishaaradaas marka waa bishaaro aada iyo aada u wanaagsan oo ilmaha loogu bishaareeyay. waxay leeyihiin culimadu bishaaradaas addoonka la tuso aayaadku inoo sheegeen waxaa habboon qof walaalkaa ah wax wanaagsan haddii aada u hayso in loogu bishaareeyo oo laga farxiyo, loona degdego arrinkaas iyaga ah. haddii ay bishaaradu ku dhaafto lagaaga hormaro na waa loo tahniyeeyaa. ilmaha kuu dhashay, marka ilmahaas haddii loo tusaale qofbaa reerkiisa ka maqan, marka isla markaad maqashay inaa ilmo loo dhalay baad taleefon usoo dirtay, ilmaha kuu dhashay maad maqashay, adigu marka bishaarada qaado. haddii lagaaga hormarana u tahniye oo qeybta tahniyadda qaado haddana. ayib, rabbi subxaanahu wa tacaala markuu toobadii ka toobad aqbalay kacab binu maalik, yacni athalaatha, saddexdii saxaabi oo dadkii tirad badnaa ee munaafiqiintii kale iyagu beenta wada sheegay laakiin saddexdoodu runta sheegeen oo kacab ku jiray, qur-aankuna uu ka qiseeyey xadiidkii dheeraaya xadiidka kacab loo yaqaano. kacab binu maalik markii toobadooda la aqbalay 50 habeen kadib waa kuwii asxaabtu tartan usoo galay inay u bishaareeyaan. waxaana ugu hormaray nin intuu meel koray uu dhawaaqay uu qayliyey ayuu halkaa uga bishaareeyey. marka dadkii orday waxaa ka hormaray ninkii meesha koray ee halkaa ka qayliyey. kacab masaajidka markuu yimidna dadkii looga hormaray bishaarada tahniyad bay saf u galeen iyaguna inay u tahniyeeyaan. marka waxyaabaha laakiin mamnuuc oo jaahiligii hore iyagu waxay ugu tahniyin jireen ninka markii ilmo u dhalanaya ama uu guursado birafaa walbaniin, wiilal bay ugu ducayn jireen ooy ugu tahniyeyn jireen. laakiin ibnu qayim raximahullah wuxuu yidhi ma habboona in qofka wiilka loogu tahniyeeyo gabadhana aan loogu tahniyeynin. maxaa jira jaahiligii baa sidaa samayn jiray oo gabdhaha waxay ugu tahniyeyn jireen markay dhintaan, markay dhashaanna mayna ugu tahniyeyn jirin. subxaan allah. haddaba tahniyadda sunnada oo wanaagsan na waa midda alxasan albasri raximahullah ka sugan, saxiixana uu sanadkeedu yahay. imaamu nawowina kitaabkiisa aladkaar uu ku qoray, culimmaduna ay saxiixiyeen, oo ah xasanulbasri baa u yimid nin ilmo loo dhalay, kadibna wuxuu ugu duceeyey, wuxuu yihi baaraka allaahu laka fi lmawhuubi laka washakarta alwaahib wabalaga ashuddahu warusiqta birahu.
macnaha allah ha kuu barakeeyo waxa uu ku siiyo kuu hibeeyey, allana ha kaa dhigo mid ku shukriya waahibka oo rabbiga subxaana wa tacaala. ilmaha kuu dhashayna xooggiisa iyo tabartiisa alla ha gaadhsiiyo oo alla ha koriyo, ilaahayna baarinimadiisa ha kugu arsaaqo. marka qof hadduu saa kugu duceeyo baaraka allahu laka fi lmawluud washakarta alwaahib wabalaga ashuddahu warusiqta birahu, hadduu damiirku waa wax labbaa laga dhigo hadduu wiil yahay, gabadh hadduu yahay laakiin waa loo bedelaya baaraka allahu laka fi lmawhuubi laka washakarta alwaahib wabalagad ashuddaha warusiqta biraha. qofka kalena wuxuu ugu jawaabayaa isaguna baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajazaaka allahu khayran warazaqaka allahu mithlahu waajzala thawaabaka. wuu isaguna yahay allaha ku barakeeyo, allana ha kuu barakeeyo korkaaga iyo waxaad haysataba, ilaahayna abaalkaaga ha badiyo khayrkaaga, alla adna ha kugu arsaaqo kan oo kale iyo ilmo alla ha kugu arsaaqo, thawaabkaaga iyo ajirkaagana rabbi ha badiyo subxaana. ducadaas qofka u baahda kitaabka xisnulmuslimka oo yarood aragteen, oo xisnulmuslimka oo jeebka gala oo adkaarta laga barto, oon rajaynayo guri walbana inuu yaalo, beijka 69 ayaad ka heli kartaa. tirsiga ducooyinkiiyo baababka gudaha ana waa baabka 45 insha allahu tacaala. 145 waa xadiidka 145, baabkuna waa 47, beijkuna waa 69 insha allahu tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala awlaadeena mid barakaysan allah ha ka dhigo, mid baariyeynana allah subxaana wa tacaala ha inooga dhigo, iyagana allah ha xifdiyo oo rabbi ha ilaaliyo insha allahu tacaala. jazaakum allahu khayr wbaarak allah fiikum.